Faisal Cumar Cabdi waa sayntiste Soomaaliyeed oo degan waddanka Mareykanka. Faisal wuxuu sameeyay matoor dhaliya dabka ama korontada. Matoorka wuxuu ku shaqeeyaa sanado cusub oo aan hore looga isticmaalin dunida. Matoorkan wuxuu gebi ahaan bedeli doonaa qaabka korontada loo dhaliyo iyo qaabka korontada looga isticmaalo Soomaaliya. Wuxuu wax badan ka raqiisnaan doonaa kuwa hadda la isticmaalo oo ah kuwa dunida ugu qaalisan. waxaan fikirkan aan keenay waa fikir aan u isticmaalayno energy-ga si efficiency because most of the scientists hore jiray fikradii ay keeneen waxa weeyaan badankood waxay yiraahdaan tamarta lama isticmaali karo 100% laakiin hadda waxaan cadeynay in tamarta la isticmaali karo intii la doono hadii sida habsamada aan u sameynay ama sharciyadan dejinay la raaco. hadda mishiinkan aan sameynay wuxuu cunayaa wax yar oo energy wax badan oo soo saaraya, taas oo wax ka qabanayso dhibaatooyinka jira adduunka oo ay ka mid tahay hadday noqon lahayd global warming, hadday noqon lahayd wadamada soo koraya oo saddexaad oo dhibaato weyn ay ka haysato dhinaca korontada. Paris ay samaysay UN-ka 1.6 billion people ayaa koronto la'aan hadda adduunka oo u baahan in wax laga qabto. So fikraddan aan soo saarnay waa fikradda kaliya ee kabargarayn karta ama dabooli karta baahidaas weyn ee ka jirta dunida saddexaad. teeda ugu muhiimsanna waxa weeyaan inaan ku bilowno waddankeena hooyo. Su'aasha mudan in la isweydiiyo waxa weeye Soomaaliya ma ka jirtaa baahi loo qabo korontada? Cali Shaamey waa ganacsade degan gobolka Minnesota. wuxuu dhawaan ka soo laabtay magaalada Muqdisho. Su'aashaas asaga oo ka jawaabayana wuxuu yiri baahida korontada si fiican bay uga muuqataa. aniga waxaan ka imid maraan dheerayn, waxaana ka muuqdaa wadada kaliya shidan oo aan ku soo arkay Muqdisho intaan joogay wadada Maka al-Mukarrama. wadooyinka kale habeenadii badanaa nalal iyo waxyaabo oo markaa shidan ma jiro. intaas waxaa ku sii dheer hoteelada qaarkood oo la dego habeenkii haddii la gaaro saacadaha sida mataqaanaa 3 saac habeenimo korontadu waa la damiyaa. waxay soo shidmaan salaada subax intaan la gaarin meelahaasaa la soo shidaa ayagoo ka fikiraya inay mataqaanaa bal wax saving dhinaca lacagta iyo uga timaado. korontadii oo qaali oo hataa mataqaanaa guryaha qaarkood aan la gashan karin. dhibaatooyin oo korontada way jirtaa magaalada Muqdisho. Soomaaliya oo dhan ay ka jirtaa laakiin qaas ahaan caasimadda way ka muuqataa. 20 sano oo dagaal kadib dhismaha ka socda Muqdisho wuxuu ku socdaa xawli aanan hore loo arag. waxaa magaalada dib ugu soo noqday ganacsigii iyo aqoon-yahanadii waddanka dibadda uga maqnaa muddada dheer. teknolojiyadan cusub wax badan ayay ka jaban tahay midda hadda Soomaaliya laga isticmaalo. dad badan ayaa awoodi doona in ay gashtaan koronto. koostiga dadka ay maanta korontada ka sii ku qaataan xamar waa meesha adduunka ugu qaalisan koronto marka la yiraahdo. waddankan aan joogno oo Mareykanka hadda kilowatkii waxa weeyaan 8 cents ilaa California ugu qaalisan ilaa 12 cents. laakiin xamar halkii kilowatt waa $1 ayuu ka badan yahay. taasna waxa keenayso mishiinadan ay isticmaalaan oo ay diesel badan cunaa, dieselkina uu qaali yahay.
laakiin kan waxay noo sahlaysaa in dadkiina ay helaan koronto raqiis ah wadankiina dadku ay awood u yeeshaan inay warshado yaryar keensadaan si ay u helaan energy raqiis ah kana wuxuu noqon karaa 20 cents 25 cents because projectiga ayaa cusub laakiin waqti markuu joogo 5 sano 6 sano 7 sano waa ka hooseynaya Mareykanka oo waxa laga yaabaa 3 cents ama 4 cents inuu tago ماشينكن waxaa galaysa certain amount yani in go'an oo ah electricity dan waxa uu soo saaraya intii gashay in ka badan fikrad ahaan taas un baa ugu muhiimsan in dadku ay fahmaan muhiimaddu marka waxay tahay hadii mashiin koronto galaysa oo korontadii badinaya aan isticmaalaynin fusel source like diesel iyo waxa hadda Soomaaliya laga isticmaalo fikrad ahaan waa wax weyn min wala yaqaana waxyaabaha kale oo hadeertan adduunyada laga isticmaalo korontada oo lagu keeno waxa kamid ah qoraxda solar panels aad bay qaali u yihiin Soomaaliya dad geey way jiraan wayna shaqayn kartaa dadka caadiga ma isticmaali karaan fikradeena marka waxay tahay oo machine technology oo yani aad uga faa'iideyn kara dadka in uu anfacayo dad badan oo Soomaali ah oo hadeertan korontada jirta maaragtay aan ka faa'iideysan karin sababtoo ay tahay because qaali way soo see loo keeni karaa korontada loo yareyn karaa si lacagta lagu sameeynahay lagu soo saarayo fikradoo dhan waa intaas fikirkan fikir wanaagsan oo maaragtay looga faa'iideysan karo adduunka oo dhan ka faa'iideysan karaan Afrika ka faa'iideysan karto qaas ahaan Soomaaliya na ka faa'iideysan karto sababtoo ah horta waa muhiim nin Soomaali ah inuu arrintan keenay mataqaanaa then soo bandhigay oo haddana wadanka baahida ugu weyn ka jirtana ay tahay wadankiisa muhiim waaye oo isheeg waxyaabo oo hadii la heli karo muddo dhow ay mataqaanaa dadku dhan ku wada farxi karaan oo asagana ay u noqon karto guul weyn asaga kaliya ma ahan Soomaali dhan ay u noqon kartaa guul xawliga uu ku socdo dhismaha magaalada Muqdisho oo loo isticmaalo teknoolojiyadan cusub waxaa hubaal ah within 7 years inay Muqdisho u ekaato sidan oo kale su'aasha ay dad badan isweydiinayaan ayaa ah sidee lagu gadan karaa motorkan casriga ah oo looga ganacsan karaa su'aashaas waxaa nooga jawaabaya Diiriye Yuusuf soo dad badan waxa jira xataa business ka ku jira oo rabay inay fahmaan su'aasha ugu horeysa waxa ahayd markii mashiinka aad sameysay oo la weynayo diyaar u shaqeynaya waa ka gadanayna fikradaha badankood business kaas oo ma shaqeyso waxay u shaqeysaa qofkii prototype uu soo sameeyay wuxuu cadeyn karaa fikrad ahaan theoretically inuu cadeyn karo inay wax shaqeynayaan hadii markii wax ay shaqeynayaan dan waxay u baahan tahay sidii marketka loo geyn lahaa so phase-ka labaad baan ku jirnaa hadeertaan oo ahayd inaan dhisno business plan ugu talagalno dadkii qofkii yani damacsan in uu ku talagalo inuu yani ama lacagtiisa geliyo ama aqoontiisa geliyo ama fahma teknoolojiyadan يعني waxaan u diyaarinaynaa business plan oo ah sidii uu maaragtay uga qayb gali lahaa wili maana bilaabin business plan-ka muddo ugu horeyso rabno inaan sameeyno waxay tahay inaan isku keenno inaan sameeyno feasibility study oo la tago meeshii Soomaaliya meel ku habboon oo pilot project ugu horeeya laga sameyn karo muhiimaddu waa taas sanadka dambe hadii ilaahay yiraahdo wixii ka dambeeya markaas inaan ka wada hadalno sidii yani aan u heli lahayn dad go'an oo ayagu maal gelin kara qaybta ugu horeysa barnaamijkan haddaan u hadlo sidii nin businessman ah oo wax ka og businesska Afrika Soomaaliya iyo meel kasta
waxa waaye waxay ila tahay fursadda tan dhinaca businesska haddii laga fiiriyo inay ka faa'iidaysan karaan dad badan oo ma ahan kaliya qofka arrinta keenay oo dad badan oo kale ay ka faa'iidaysan karaan business cusub ka abuuri karaan oo ay ku ganacsan karaan mar haddii Soomaali meel la geeyo oo meel kastana ay u baahan tahay demandigi uu jiro waa qasab in fursado badan ay keeni karto waan u diyaarin doonaa waxaan rabnaa inaan ogaano in Soomaaliya uu Faisal iyo dad kale oo anaga nala shaqeynaya imaan doonaan Soomaaliya bilaha soo socda dadkaas inay maaragtay ay u tagaan oo ay kala hadlaan maaragtay wixii ay damacsan yihiin inay ama maalgelin noqoto ama in ay yihiin dadka ku jira businesskan electricity-ga Soomaaliya already in ay yani sidii ay ula xiriiri lahaayeen dadkii ay la xiriiri lahaayeen website-kan soo gelin doonaa haddii la yiraahdo arrin weyn weeye because yani dadku waxay u baahan yihiin inay fahmaan aqoonta Soomaalidu ee leedahay waxyaabo badan bay Soomaalidu ku soo dartay adduunka soo wax la yaabo ma ahan gooni ahaan marka fikrad ahaan aniga waxaan isleeyahay diyaar baan u nahay inaan helno dad cilmigan leh oo soo saari kara aqoon yani adduunyada bedeli kara fikirkan oo wiilka Soomaaliga ah ka dambeeyo fikir oo aan ku faraxsanahay oo aan hubo Soomaaliya oo dhan inay ku farxayso oo aan hubo ummadda oo dhan oo maanta meel kasta oo baahi koronto ka jirta ay ku wada farxayaan bay la muuqataa waan jeclaan lahaa inaan arko iyadoo xamar laga shiday magaalooyinka lagu isticmaalayo tuulooyinka tagtay iyo meelaha oo labada guri yar yar ku yaala hataa si gaartaan jeclaan lahaa inaan arko